السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جانك مالمها waxaan idin soo gudbeyna qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay ama ciwaankeedu uu yahay samafalka iyo sadaqada faa'iido ay leedahay iyo sida qofka markii uu daa'imo oo Allah subhanahu wa ta'ala uga badbaadinayo dhibaatooyin badan isla markaana uu furay noloshiisa waxyaabo badan uu haminayo. qisadan ayaa runtii waxay ku dhacday wiil yar oo dharsano jir ah. wiilkani ayaa waxay dhaleen hooyo iyo cibaado badnaa. qisadan ayaa waxay ku dhacday wiil yar oo dharsano jir ah. wiilkani ayaa waxay dhaleen hooyo iyo aabbo oo aad u cibaado badan isla markaana ahaa dad wanaagsan wanaagana ka shaqeeya ummadana u gargaara. aabahani ayaa wuxuu ahaa mar waliba inuu ku xiran yahay masaajidka, mar waliba jamaacada ma aysan dhaafi jirin, cibaadada ayuu laazimi jiray. sidoo kale hooyadani ayaa iyaduna waxay ahayd mid ku wanaagsan cibaadada isla markaana hawsheeda iyadoo qabsanayso ayaa waxay ahaa jirtay mid Allah subhanahu wa ta'ala mar waliba xusta oo xasuusata wanaagana ka shaqeysa. hase ahaatee Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxa uu doonay inuu imtixaamo hooyadani iyo aabahani. waxa ay dhaleen wiil yar. wiilkani ayaa waxa ku soo booday xanuun oo aysan garanaynin. xanuunkani ayaa aad u qabtay wiilkani. markii ay ka yaabeen xanuunkiisa ayaa waxay ula carareen isbitaalka markii ay geeyeen oo baaris lagu sameeyay ayaa dhaqaatiirtii waxay ku yiraahdeen xanuunka wiilkan hayo waxba kama qaban karno. hooyadii aabihii ayaa ku fikiray maadaama isbitaalkana wax u qaban waayay inay geeyaan isbitaal ka wanaagsan isla markaana ay joogaan dhaqaatiir heer sare ah aqoon sarena leh. isbitaalkii u weynaa ayay geeyeen. hase yeeshee markii dhaqaatiirtii ay ayaguna arkeen wiilkani xaaladiisa ayaa waxay ku yiraahdeen wiilkani wax rajo ah ma lahan. hooyadii aabihii oo yaaban ayaa wiilkoodii la soo noqday waxayna keeneen gurigoodii. murugo badan ayaa qabatay maadaama uu ahaa wiilka kaliya ay qabaan isla markaana ay ka fiirsanayeen afka kaligiis. wiilkani muddo ayuu xanuunsanaa, jirada haysana tabar waa loo waayay oo ay ka qusteen. ayagoo yaaban oo sida cunuga iskaga haysta maalmo badan ayaa waxaa dhacday habeen kamida ayaa aabihii wuxuu ku soo toosay iyada oo masaajidka laga adimayo. markaasuu soo baxay. markuu soo baxay ayuu wuxuu ku yimid hooyadii oo kor fadhiso wiilkeedii, murugana meesha la fadhiso. markaasuu markuu fiiriyay wiilka ayuu aad uga naxay maadaama ay jiradii ku sii badanayso wax xalna aan loo helin. aabihii ayaa iska soo tagay wuxuuna ku fikiray inuu masaajidka iska aado. uu soo baxay markaasuu weyse qaatay. markuu weysaystay uu soo baxay uu doonay inuu masjidka aado ayuu wuxuu ku arkay gurigiisa banaankiisii 3 bisad ama mukulaalo oo banaanka fadhiyaan oo ay ka muuqato gaajo. markaasuu wuxuu ku fikiriyay maadaama ay bisadahani gaajaysan yihiin inuu wax siiyo waxa laga yaabaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu faraj uga dhigo. sidoo kale wuxuu xasuusnaa xadiiskii rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu yiri dadkiina xanuunsan ku daaweey sadaqada. ninkani waa u baxay guriga ayuu galay. markaasuu firiijka wuxuu ka soo bixiyay xoogaa hiliba. bisadihii ayuu u dhigay. bisadihii way cuneen. ninkani wuu iska tagay wuxuuna aaday masjidka. salaadiisa ayuu iska soo dukaday. markii uu salaada ka soo laabtay ayuu guriga soo galay. markii uu guriga soo galay ayuu wuxuu isiri bal wiilkii xaaladiisa bal sidee u taalo bal soo fiiri. markii uu kor tagay ayuu wuxuu arkay wiilkii oo ku jiro xaalad ka duwan xaaladii ay ku ogaayeen. aad ayuu ula yaabay. cunugii xanuunsanaa misna wajigiisii bedelnaa wuxuu noqday cunug caadiya oo ku soo noqday dabeecadiisa caadigii. qannadii wixii hayna way ideeyeen. aad ayuu u farxay. markaasuu la yaabay xaaladda dhacday. xaaskiisii meesha ayay ku hurdaysay oo daal ayaa ka batay. markaasay iyadoo fadhiso hurdo la dhacday. aabihii ayaa toosiyay isagoo doonaya inuu u bishaareeyo in wiilkoodii Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyo caafimaad. hooyadii markii aragtay wiilkeedii oo xanuunkii daayay aad ay u faraxday. waxayna bilowday in Allah subhanahu wa ta'ala ay u mahad celinayso ay leedahay Allah adiga ayaa mahad iskale maadaama aad cunugeygii xanuunkii ka qaaday. aad ay u faraxday. haweeneydii ayaa waxay doontay inay soo dukato salaad. hase yeeshee intaysa salaadii aadin ayaa waxa ku soo dhacday markii ay meesha ku hurdaysay inay ku riyootay riya cajiiba. markaasii sugu weysay ilaa ay ka soo dukato. waxay bilowday inay uga sheekeynayso ninkeedii waxay riyada ku aragtay. markaasii waxay ku tiri markii aan halkan ku hurday
waxaan arkay riyo cajiib ah. waxaan ku riyooday wiilkeenna oo shimbir u yimid oo doonaya inuu qaato oo inuu cuno doonayo. markaasaa waxa ay tidhi 3 bisado ayaa gaararkiisa ka soo baxay, waxayna isku dayeen inay ka badbaadiyaan shimbirkii. dagaal ba'an ayaa dhex maray ilaa ay ka soo dhigeen marka dambe wiilkeeni. odaygii ayaa markaasi la yaabay oo ku yidhi, waxaa dhacday markii aan soo toosay oo aan ku soo toosay aadaanka oo aanan doonay inaan masjidka aado, ayaan waxaan la kulmay 3 bisad oo hortaagan guriga banaankiisa. markaasaa waxaan ku fikiray inaan xoogaa raashina siiyo maadaama ay gaajaysan yihiin, aniguna rajaynayo in alla subxaanahu watacaala culays ka nahayo naga qaado. markaasuu wuxuu ku yidhi, waxaan hubaa in alla subxaanahu watacaala oo sadaqadiina nagu furtay culayskiina noo qaaday. qisadina halkan ayay ku eg tahay. qisadani dhab ahaantii waxaan ka faa'iideynaa in sadaqadu ay tahay wax cajiib ah. sadaqadu waa shay cajiib ah. qofkii alla subxaanahu watacaala oo waafajiyana waa qof nasiib leh. haddii aad xanuunsan tahay ama ay qofkaa xanuunsan tahay ama aad dhibaataysan tahay ama aad murugaysan tahay ama duruufi ku haysato ama ubadkaa xanuunsan yahay ama ubadkaaga jiran yahay ama ubad la-aan ay ku hayso ama ubadkaaga uu sagsaakaa yahay, waxaan isku dardaaramaynaa inaan sadaqada badino. maxaa yeele sadaqadu albaabo badan ayay furtaa oo loo taag waayey tabarna loo waayey. sidaa darteed qisadani waxaan ka faa'iideynaa qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay inaad sadaqa baxsato. sadaqadu waxay damisaa carada allah. sidoo kaleeto sadaqadu waxay kuu tahay gaashaan oo lagaga celinaya shaydaanka iyo dhibaatooyinka soo waajihi lahaa. sidaa darteed ku dadaal intaad awoodo ama aad kari karto inaad la baxdo sadaqo si alla subxaanahu watacaala oo kugu saqiro arrimahaaga, muraadaha aad leedahayna aad ku gaarto adigoona dhib iyo dhibaato ku dhicin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gambalaalka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد